أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal ku soo dhowaada janalka kaahiya balaas haddii aad janalka ku cusub tahay sabskraib saar gambaleelkana furo muuqaalkana laagarey asxaabtada la wadaag mahadsanidin bismillahi raxmaan raxiim waxaan bartanka uga jirnaa maadadii xisaabta fasalka form 4 jabtarka koowaad ee trigonometry waayahay casharkan markuu dhammaado wuxuu bartuu awoodi doonyaa inuu ka shaqay kariyo product to some identity midaalada oo taranta ah ayaa wuxuu qori doonyaa wadarta sidoo kale sam wadarta ku ahna wuxuu u bedeli doonyaa product taran ahaan midaaladaas sidoo kale half angle identities ayaan qaybtiisa hore sii bilaabaynaa sigane labadan cashir waa dhammaynaynaa midkaanna waa sii gudagelaynaa haddaba la yidhaaho casharo kale ayaa nooga dhimaan doona halkan marka la socod wanaagsan product to some waa tana qaacidadeed marka product waxaa waaye taranta oo loo qoraayo wadarta midaalada taranta wuxuu leeyahay waxaa waaye cos a ku dhacsan cos b sin a ku dhacsan sin b sin a ku dhacsan cos b cos a ku dhacsan sin b qaybtan waa product waa taran tu waxaa loo qorayaa sam wadar samna waxaa waaye intaan waa qayb lagu daray intaan waa qayb meesha markuu wadar ayaa yaala wadar marka lagu leeyahay faraqna waa soo geli kariyaa ku dar ka jar oo kale waa waxaa product to some identity yaa la yidhaha cos iyo cos markay isku dhacsan yihiin waxaa lagu helaa half cos a plus b plus cos a minus b cos iyo cos isku dhacsan ma aragtid waxaa waa cos a plus b oo lagu daray cos a minus b mar walba halfkan waa joogto sin iyo sin markaa isku dhacsan ma aragtid waxaa waa cos a minus b laga jara cos a plus b cos a minus b bisa inta soo maraya laga jarana waa imaanaysaa waa markii cos iyo waa markii sin iyo sin la joogo markii cos iyo cos la joogana mar walba waa cos cos a plus b cos a minus b cos a minus b cos plus b oo plus minus kala qaadanaya haddii isdhaaf la yidhaaho sin a iyo cos b sin iyo cos maday yimaadeen oo sintu soo horeyso waa sin a plus b lagu daray sin a minus b halfkan waa joogto markay costu soo hormarto cos a sin b la yidhahan waa sin a plus b minus sin a minus b sin a plus b minus sin a minus b waaye marka product to some ayaa la yidhaha qaacidadan product to some ayaa la yidhaha haddaa arti cos ku dhacsan cos kana isticmaale sin ku dhacsan sin haddaa arti tana isticmaale sin ku dhacsan cos tana isticmaale cos ku dhacsan sin tana isticmaale hahey example 1.16 right waxaa qoraysaa la yidhaha 4 cos 75 degree sin 25 degree as waxaa qoraysaa sum wadarta or difference faraqa of two functions wadarta amba faraqa laba fansaara qoraysaa hadda waxaa waaye cos iyo sin isku dhacsan product waa qaybta hadda maxay qoran tahay product ahaan sababtoo isku dhacsan yihiin cos iyo sin isku dhacsanna waa cos soo horeyso waxaa qoraynaa marka wadar ayaan qoraynaa amba difference solution de waxaan leenaha marka solution aan leenaha cos oo ku dhacsan sin oo cos soo horeyso inta iga fiiri marka cos sin cos sin waa kanaa costaa soo horeysa sinkaa dambe midkan waaye marka qaacidadan isticmaalaa cos a mii laga dhahaya 75 aan haysanaa cos b mii laga dhahayna 25 haysanaa meel kastoo a waa 75 meel kastoo b ana waxaa waa 25 inta waxay naqaan mugat san 75 plus 25 minus san 75 minus 25 meel kastoo a waxaan ku bedelanaynaa 75 aan ku bedelanaynaa bis inta ay soo qaad marka intaan soo qaad qaacidadan la barbar dhigaa 4 cos 75 ku dhacsan sin 25 cos iyo sin ayaa half la mid ahay meeshan cos iyo sin 4 dheeraaday wataan 4ka soo qadarto 4ka ma iska dhig 4kan zaid waa banaanka iska dhig bil fur intaa waxay la mid yihiin leena muga halfkan soo qaado half sin a plus b a 75 lagu daray 25 laga jaray sin a minus b a 75 laga jaray 25 bracket inta ka xir kii 4 too banaanka in halkan ka soo xir bis qaybtana xalinayna muga qaybtana la falgelinaa 4 soo qaad half soo qaad 75 iyo 25 isku dar waa 100 minus 75 iyo 25 kala goy waa 50 waa 50 soo ma halkaas marka la joogo waxaa samaynaysaa waxaa isla kansagareynaya 4 tan inta lagu qaybi intana lagu qaybi inta waxaa soo baxaysa labaa soo baxaysa
labada sawirta intay ku dhacee intan waa ku dhacaysaa labada sawirta maxaan dhahnay waxay ku dhacaysaa halkaas waxaa soo baxa marka waxaa soo baxay twodan soo qaad inta ku dhifo 2 sin 100 degree minus 2 sin 50 degree halkaasay ku dhammaanaysaa halkaa ayay ku dhammaanaysaa examplekaas 1.6 maxuu qornay product hadda maxaa u qoray difference laba function oo kala jaran aan qoray daato isku dhacsanaayeen waana leedahay sum u qor or amase difference tay noqonayso difference ay noqoto marka difference u qor taas waxa uu ahay product to sum tan waxa waa sum to product sin a oo lagu diro sin b sin a oo laga jaro sin b cos a oo lagu diro cos b cos a oo laga jaro cos b waxa waaye sum oo product lagu qorayo isku dar iyo kala jar dhinaca soo jiro xaggana waxa waaye producta lagu qoraya sin lagu diro sin marka haysatid waxa waaye 2 sin a plus b loo qaybiyo 2 cos a minus b loo qaybiyo 2 haye sin a laga jaray sin b hadday timaadna waa 2 cos a plus b loo qaybiyo 2 sin a minus b loo qaybiyo 2 cos a plus cos b na waa 2 cos a plus b loo qaybiyo 2 cos a minus b loo qaybiyo 2 cos iyo cos markay timaad waa cos iyo cos sidoo kale oo balasa cos iyo cos oo minus hadday timaadna waa sin minus ay watan laakiin minus 2 sin a plus b loo qaybiyo 2 sin a minus b loo qaybiyo 2 marka qaacidooyinkan qaybtan waxa waaye sum qaybtan waa isku dhacsantaa product ee layidhaha qaybtan waa product waaye tusaale nagay marka example 1.17 waaya 16 waa soo qaadanay 1.17 example 1.17 waaye 16 waa soo qaadanay example 1.17 right waxaa qoraysaa sin 2 theta minus sin 4 theta as product of two functions waxaa qoraysaa productiga amba tiranta laba function hadda difference haysataa kala jara haysataa waxaa qoraysaa product ahana qoraysaa sin oo laga jara sin inta ka fiiri tan miya maya tan miya maya tan miya ha sin laga jara sin qaacidadan ayaan isticmaalaa bis iyo soo qaad marka solution deh sin 2 theta laga jaray sin 4 theta is equal qaacidadan soo qaado 2 soo qaado cos meeshi a ahayd waa 2 theta meeshi b ahaydna 4 theta waaye sababtoo sin a booskeedu 2 theta haysanaa minus sin b booskeedu maxaa haysanaa 4 theta 2 cos a meeshaheeda waxaa ka dhigaysaa 2 theta plus 4 theta loo qaybiyo 2 sintan soo qaado 2 theta laga jaro 4 theta loo qaybiyo 2 intaasay naqanay qaybtana xalinayna marka qaybtana xalinayna soo qaado 2 cos 2 theta iyo 4 theta isku dar waa 6 theta haye sin minus 2 theta loo qaybiyo 2 minus 2 theta loo qaybiyey 2 dan kadib waxaan samaynaynaa waxaan isku yaraynaynaa lixdanna lagu qaybi intana lagu qaybi 6 lagu qaybi 3 theta 3 theta inta ka imaanaya meeshana 2dan sarreeya iyo 2dan hoose isla baxaano minus theta bis inta soo baxay minus theta bis ay halka ka imaanaysa waaya waxaa soo baxay 2 cos inta waxaa ka imaanaya 3 theta sin intana waxaa soo baxa minus theta ugu dambeyn minuskan banaanku soo dhifo leh minuskan banaanku soo dhifo waxay noqon minus 2 cos 3 theta sin theta bis hadda maxaa u qor leedahay waxaa u qortaa le product of two functions laba function oo sin iyo cos isku dhaxsan oo qora buka product of two functions aan u qoray halka waxaan u gudbaynaa ayadane sum to product sum ayaa laysiiyey product aan qoraynaa haddaan productigan dib u celishona sum saanu noqonaa anoo qaacida maraya maxaa u qori karnaa meeshaan uu ka yimid loo celi karaa kana loo celi karaa waaya hagaag half angle identities half angle identities halkaana half angle qaacidooyinkiisa aan gelaynaa half angle waxaan gelaynaa qaacidooyinkiisa ayaan gelaynaa qaacidooyinka waa lasoo buruufaa waa waqti dheer aa gelaya waa sidaan asaga soo qaadana cos a over 2 ama cos half angle waxay la mid tahay plus or minus square root 1 plus cos a loo qaybiyo 2 sin half angle-na waxay la mid tahay half angle buu leeyahay waa angle-kan oo half loo qaybiyo waa angle-kan oo half loo qaybiyo waaye
waxay la mid tahay plus or minus 1 minus cos A loo qaybiyey 2. Labadan sin iyo cos half angle markii la joogo waxay u kala duwan yihiin 1 plus cos A waaye midaan tanna 1 minus cos A waaye. Farqi kale ma jiro. Ama tan haddii la joogo tan half angle tan mar walba waxay ahaan jirtay ratio-ga sin of a cos. Marka sin waxay ka soo qaadeen 1 minus cos, cosna waxay ka soo qaadeen 1 plus cos intaan radicalkiisa waa naqanay. Sidoo kale qaacido labaad ay leedahay tan oo waxay leedahay sin A of 1 plus cos A. Sidoo kale qaacido saddexaad ay leedahay 1 minus cos A of a sin A. Tan half angle saddexdan qaacido mid aragtay lagu soo raadi karaa iyo givenka ay sidoo wuxuu ku saabsan yahay. Marka saddex qaacido ay leedahay plus or minus 1 minus cos A loo qayb plus or minus square root 1 minus cos A loo qaybi 1 plus cos A. Iyo tan half sin A loo qaybi 1 plus cos A. Iyo tan half 1 minus cos A loo qaybi sin A. Intaas midda rabtay isma karta saddex qaacido ay leedahay. Example-ka 1.18 na kee marka. Find waxaa soo raadaysaa exact value of cos 15 degree qiimaha saxda ah oo cos 15 degree using adoo isticmaalaya half angle identity for cosine. Cosine amba cos half angle keeda adoo isticmaala waa kana qaacidada adoo isticmaala soo raadi. Waayahay solution de. Waxaan leenahay cos maxaa leesiye 15 degree. 15 degree waxaan u qori karaa leenahay cos waxaan ku dhifanahay inta meeshan laba ku dhifo 30 loo qaybiyo labo. Hadda 30 lagu qaybi maqo 15. Haddaan ira cos 30 loo qaybiyo 2 angle keedu san yahay iyo cos angle keedu 15 isku mid waaye. Qiimo ahaan isku muuqaalka kala duwan maahan qiimo ahaan isku mid waaye. Sababtoo ah 30 kan maxaa u qaybsan labo waa muujiye laakiin 15 kan asalka waxay ka timid aan leenahay 30 loo qaybiyo labo ka timid aan leenahay. 30 loo qaybiyo labo ka timid aan leenahay si aan half u yeelano half noogu yeesho. Halka in half noo noqotaan rabnaa ujeedka. Bes marka cos A of 2 ma jirno cos A eedu waa 30 2 dina tana cos 30 of 2 A meel kasto A waa 30 loo qaybiyo 2. Caadi soo qaado cos 30 of 2 waxay la mid tahay plus or minus 1 minus cos A. Eedan la mid tahay cos 30 ka dhig loo qaybiyo 2 dhig. Loo qaybiyo 2 kanan ka shaqeynaa koriikan. Cos 30 of 2 waxay la mid tahay 1 minus cos 30 loo qaybiyay 2 bas ka soo qaado. Hay kan la soo qaado marka. Halkan xalisay raba maano cos 30 degree bedel maxay la mid tahay cos 30 degree waxay la mid tahay radical 3 of 2. Radical 3 of 2 1 minus oo soo qaaday cos 30 degree. Meeshaan type error jiro. Haddaan saxaynaa asalka qaacidada meeshaan plus ay heeday. Meeshaan plus waaye. Meeshaana plus waaye. Meeshaana plus waaye. Halkaan markii la joogo waxaan leenahay marka xalli qaybtan kor xalli 2 inta ku dhifo 2 times 1 maxaa waaye waa 2 plus radical 3 loo qaybiyo 2 ka imaanaysa. Haya 2 plus meeshaan ka dhig 2 plus radical 3 loo qaybiyo 2 iyo 2 dan hooseeya. Qaybtan kor markaan isku xalliyo waxaa ka soo baxda 2 plus radical 3 loo qaybiyo 2 hooseeyana waxaan haysanaa 2 aan haysanaa. Hooseeyana waxaan haysanaa 2 aan haysanaa. Halkaas markii la joogo waxaa la sameynaa 2 dan hooseeyaha 1 u qarsan. Number kasto meel iska yeel maxaan dhihi jirnay 1 u qarsan ma dhihi jirno 2 dan 1 u qarsan. Maadaama 1 u qarsan calaamadan ku dhifasho bedel fraction kaana daba gedi. Fraction kaana daba gedi. Haddii la gedo maxay naqay 2 minus waxaan u bedelnay plus waa saxnamaas 2 plus radical 3 loo qaybiyo 2 waa qaybtan sare. Calaamadan ku dhifasho u bedelnay. 1 kan waa kor marna 2 dan hoos marna 1 of 2 ay naqanay. 1 kan kor ku dhaca 2 dan hoos ku dhacay. 1 kan kor ku dhaca 2 dan hoos ku dhacay 2 times 2 4 ay naqanay meeshaan. Bes 1 kor ku dhex bedeli ma meeshaana plus ka dhignay 2 times 2 maxay naqanay 4. 4 square root waa ka baxdaa. 4 square root waa ka baxdaa. Maqay uga baxay 2 ay uga baxay. Meeshaan waa plus fiir kuwad
meeqa uga baxee 2dan bannaankay joogtaa marka 2dan gudaha 4kan gudaha ku jirtay laakiin 2dan maxaa waaye radicalka bannaankay ka joogtaa jawaabta ugu dambaysana waa kana kadib waxaan leenahay cos 15 degree waxay la mid tahay plus or minus square root 2 plus radical 3 loo qaybiyey 2 jawaabta ugu dambaysa waa kaasaa waayahay dhammaad halkaa ayuu ku dhammaanayaa cashirkayni aad u mahadsan tahay haddii halkaas la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa janalka inaad subscribe tiraahid muuqaalkana aad like saartid la wadaagtid saaxiibadaada